صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم walaalayaal waxaan insha allahu tacaala bilaabanaynaa barnaamij loo yaqaano ama aynuugu magac darnay raxmaddii caalamka waa barnaamij aynu insha allahu tacaala kaga hadli doono subanihii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa barnaamij aynu ku iftiimin doono oo halkudhigeedu uu yahay aayaddii alle subxaanahu wa tacaala uu ku yiri fii suurati اlanbiyaa aayadda 107 wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin kumaanaan soo dirin nebi maxamedow ilaa raxmata lilcaalamiin ilaa inaad u naxariisato caalamka mooyaane ama ilaa raxmata lilcaalamiin caalamiinta inaad u tahay naxariis adiga laf ahantaadu nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa raxmat اlcaalamiin waa naxariistii alle subxaanahu wa tacaala u hadyadeeyey ee caalamka muslim iyo gaal lab iyo dhadig mid awood leh iyo mid taag daran mid yar iyo mid weyn mid xanuunsanaya mid caafimaad qaba mid hantiila iyo mid faqiira mid madaxa iyo mid majaawo shiciba dadka qaybahooda kala duwan iyo noocyadooda kala duwan dhammaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yahay naxariis buu yahay aayaddaasa halkudhig barnaamijka u ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa naxariis laf ahaantiisa ayaa naxariis ummadda u ah dhaqamadiisa iyo dabeecadihiisa iyo waxa uu samaynaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dhammaantood waxay ku salaysan tahay sidaynu arki doonno naxariis iyo turid iyo dhibirsanaan iyo qalbi jilicsanaan uu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam khalqiga kula dhaqmayo gaal iyo muslim xataa xayawaanaadka naxariis gaadhaysa ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ku dhaqmayay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaa kaloo soo gudagelaya sharcigiisuna inuu yahay naxariis uu yahay idan aayaddu waxay tilmaantay ka soo diray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa allah raxmadiisa iyo naxariistiisa waa tilmaantay waxay kaloo tilmaantay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo la soo diray inuu naxariis ummadda u yahay ta saddexaad wixii lala soo diray iyo sharcigiisuna inuu naxariis dadka u yahay laa yukalifu allahu nafsa ilaa wuscaha maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj ina اdiina yusru bucitu biاlxaniifiyati samxa adilo aan la soo koobin baad tilmaamaysa diintu inay tahay diin naxariiseed diin sahlan diin dhibirsan diin la fududeeyey ayaa waxa weeya uu inoo tilmaamaya waxaanu insha allahu tacaala aada u faahfaahin doonaa qaababkii kala duwanaa iyo dadkii kala duwanaaye nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu u naxariisanayay inagoo aayadda ku iftiimin doona ama ku cadayn doonaa sifatu raxma in la isu naxariisto waa tilmaan aada iyo aada u qiimo badan weeye alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaaman yahay bal alle subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay naftiisa inuu ku waajibiyey kataba rabukum calaa nafsihi الraxma rabbigii naftiisa wuxuu ku waajibiyey naxariis alle subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamay ina raxmatii sabaqat ghadabii ina raxmatii halabat ghadabii nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam alle inuu leeyahay naxariistaydu waxay ka horeysaa cadhadayda waxay ka haalib noqotay cadhadayda oo alle subxaanahu wa tacaala waa naxariis badan yahi
nabigiisa waa ambiyada kusoo khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiis messajka uu xambaarsanaa nuxurka sharciga uu siday dhammaanteed waxay ka tarjumaysay naxariis bay ka tarjumaysay sida alla subxaanahu wa tacaala oo aayadda ku tilmaamayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam si gaara ugu naxariisanayay dadka muminiinta ah sida alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis xagga alle subxaanahu wa tacaala ka timi oo uu ku siiyey sababteeda ayaad ugu dabacsanaatay oo saxaabadii aada ugu naxariisatay waxaa alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay markuu nabigiisa suubanihiisa uu ka sheekeynayay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim waxaa lagu tilmaamay tilmaamihiisa inay ka mid tahay dadka muminiinta inuu u naxariisanayo u qalbi jilicsan yahay u dhibirsan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaynu ka hadlayno tilmaanta naxariista iyo xilligan aynu nool nahay ee dadka quluubtoodu ay ingegtay naxariistii ay yaraatay dagaaladii iyo colaadihii ay bateen dhiigga daadintiisu uu batay dadka tabaalaysanee taagta daran naxariistii loo naxariisanaya ay yaraatay waa xilli aynu u baahannahay barnaamijkan oo kale inaynu ka faa'iidaysano inaynu ogaano nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu tilmaamay dayasho wanaagsan inay inoogu sugan tahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana bal inaynu ogaano qaabka uu dhaqankan iyo dabeecaddan wanaagsan u dhaqangeliyey iyo naxariistiisu sida ay u baahsanayd inaynu insha allahu tacaala mawaaqif dhacdooyin aan ku saabsanayn hadaladiis laakiin nabigu uu baractical u sameeyey dhaqangeliyey ficil ahaan nabigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam qisooyin nool oo xaadira oo qof waliba uu dareemi karo ayaynu insha allahu tacaala kusoo qaadan doonaa markaynu naxariista ka hadlayno tilmaamaha kale ama dabeecadaha kale marka la dhinac dhigo haddaynu tusaale kitaabka alle subxaanahu wa tacaala usoo qaadano sifada naxariista alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku sheegay 300 oo meelood wax ka badan ayaa dabeecadda naxariista lagu sheegay ama alle subxaanahu wa tacaala ha naxariisanayo ama ambiyadiisu ha naxariisanayaan ama khalqigu ha isu naxariisanayaan sifatu raxma dabeecadda raxmadda loo yaqaano waa tilmaanta ugu badan ee alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay 300 oo jeer wax ka badan baa lagu sheegay tilmaamaha kale aad bay uga kooban tahay raxmadda 315 goor baa la sheegay waa sifatu raxma sifatu sidq runta oo kale waxaa ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay 145 goobood ayaa runta lagu sheegay dabeecadda sabirka loo yaqaano iyo dulqaadka in la sabro ilaa 90 goobood baa lagu sheegay in la iscafiyo 43 goobood wax gaadhaya ayaa lagu sheegay karamka iyo waxbixinta iyo deeqda iyo deeqsinimada 42 meelood wax gaadhaya ayaa lagu sheegay ammaanada ilaa 40 meelood baa lagu sheegay wafaaga iyo ballamaha in la oofiyo iyadana waxaa lagu sheegay ilaa 29 meelood waad qiyaasaysaa 315 oo lagaga hadlaya naxariista lagaga hadlaya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waxaa ku soo xiga waxa weeye tilmaamaha boqolka iyo dheeraadka lagu sheegay waa danayn cad oo la danaynaya tilmaanta naxariista waayo nolosha haddii naxariis laga waayo nololi ma jirto waxaa inoo sii cadaynaya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala markaynu eegayno tilmaanta naxariista iyo sida bini aadamku ugu baahan yahay iyo sida alle subxaanahu wa tacaala u daneeyey iyo sida sharcigeenna lafdhabar ay u tahay in laysu naxariisto alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka 114 suuradood buu ka kooban yahay
kaas waxaan ka ahay suuratu tawba baraa'atu min allahi warasuulih 113 kale waxaa lagu bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaah magaca alla ayaanu ku bilaabaynaa magaca alle waxaa lagu xejiyey allah araxmaan araxiim waa laba magac oo labaduba ka tarjumaya labaduba nuxurkooda ama macnahoodu uu xambaarsan yahay tilmaanta naxariista uu xambaarsan yahay barnaamijkii bara rabbiga ayaynu ku faahfaahinaa waxay ku kala duwan yihiin laakiin labada magac labaduba waa laba magac oo ka soo jeeda naxariista ka soo jeeda 113 suuradood ayuu ilaahay kitaabkiisa ku bilaabay alla subxaanahu wa tacaala xagga suuradaha marka laga hadlayo kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay suuratu lfaatixa musxafku siduu u habaysan yahay oo tawqiifiya oo waxyi ah in sidaa loo kala dambaysiiyo oo suuratu lfaatixa lagu bilaabo suuratu nnaas lagu dhammeeyo suuratu lfaatixa waxaa lagu bilaabay bisimka oo 2 jeer lagu sheegay magaca alle subxaanahu wa tacaala alraxmaan araxiim labada magac ee sifada naxariista tilmaamaya haddana suuradda gudaheeda waxaa lagu soo celiyay isla labadii magac oo wada socda aayad laga dhigay alraxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan araxiim allihii naxariista guud naxariisanayay allihii naxariista gaarkaa dadka muminiinta u naxariisanayay taa maxaynu ka fahmaynaa waxaynu ka fahmaynaa sida loo daraynayo suuratu lfaatixa oo aynu ogsoonnahay suuraddaas inuu alle subxaanahu wa tacaala uu inagu waajibiyey 17 jeer inaynu ku soo celcelinno maalintii waa inta waajibka ah 5 salaadood ee faralka ah waxaa lagaa doonayaa 17 ragcadood baa lagaa doonaya mid walba waxaa lagaa doonayaa faatixada inaad akhrido mid walbana waxaa ku sugan alraxmaan araxiim oo 2 jeer la soo celiyey oo taa macnaheedu yahay 4 jeer magacyada alle ee naxariista tilmaamaya in la sheegay alraxmaan oo 2 jeera iyo alraxiim oo 2 jeeraba faatixada lagu sheegay haddii loo geeyo sunnayaasha maalin iyo habeen laynaga doonayo ilaa waxay noqonaysaa 40 faatixa wax gaadhay 17 loo geeyey 11 salaatuleyla loo geeyey 17 faralka ah loo geeyey 10 sunnayaaloo faralka la socda loo geeyey duxadii loo geeyey ilaa 40 wax gaadhaya salaadood oo mid walba 40 ragcadood oo mid walba faatixada aynu ku akhriyayno oo mid walba aynu ku celcelinayno magacyada alle subxaanahu wa tacaala ee naxariista ka hadlaya waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa naxariistu sharcigeenna halkay ka joogta in la tilmaamo ayaa waxa weeye looga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya tilmaanta noocana wuxuu inoo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam in alla uu u naxariisanaya dadka naxariista in allaha yarxamu min cibaadihi aruxamaa dadka naxariista alle subxaanahu wa tacaala waa u naxariisanaya man laa yarxam laa yurxam ka aan naxariisan loo naxariisan maayo guubaabo badan buu nabigu ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam in laysu naxariisto laakiin xalaqaadka barnaamijkan aynu kaga hadli doonno insha allahu tacaala aynu ugu magac darnay raxmadda caalamka waxaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonaa siduu nabigu u dhaqangeliyey tilmaanta ama dabeecadda naxariista oo aynu ku faahfaahin doonno xalaqaadka dambe insha allahu tacaala oo aynu kaga hadli doonno naxariista nabigu calayhi salaatu wasalaam inay gaadhaysay dadka muslimiinta ah qaabab kala duwan hadday tahay dadka jilicsan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u naxariisanayay dadka jilicsan noocyadooda kala duwan hadday tahay dadka waayeelka ah haddii ay tahay dadka waxa weeye addoommada shaqaalaha ah haddii ay tahay dadka xanuunsanaya haddii ay tahay dadka la cusleeyey ee duruufo qallafsani ay ku yimaadeen
hadday tahay dadka naftu ay kasii baxayso ee aadka u xanuunsanaya ducafada ama dadka taagta daran dhammaantood siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu naxariisanayay siduu nabigu ugu naxariisanaya calayhi salaatu wasalaam muslimiinta guud ahaan kooda awoodda leh iyo kooda daciifka labadaba waxaanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala muslimiintu xitaa haddii ay dhintaan nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa uu ugu naxariisto bacda mowtihim intay dhinteen dabadeed waxaanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala naxariista nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa inay u gudubtay dadyowga gaalada aan muslimiinta ahayn sida aayaddu ay tilmaamayso wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin caalamiin caalamkao dhan baa soo gudagelaya gaal iyo muslim waana sida raajixe xooga badan ee culimmadu ay xoojiyeen aayadda in lagu macneeyo hordhacaas ayaan maanta jeclaystay insha allahu tacaala inaynu xalqadan kaga hadalno xalaqaadka soo socda insha allahu tacaala waxaynu ku faahfaahin doonaa qaybaha kala duwan iyadoo aynu soo qaadan doonno tusaalayaal noolnool oo ku saabsan noloshii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu u dhaqangeliyey dabeecaddan wanaagsan ee qiimaha badan ee bulshadu ay u baahan tahay in waxa weeye la isu naxariisto la isu turo waxa weeye dadka tabaalaysan la garab istaago taasaynu doonaynaa insha allahu tacaala bal nabigeenni moxamed aha sala allahu calayhi wasalam inaynu la noolaano dhowr xalqadood iyadoo aynu si fiican u faahfaahin doonno xalaqaadkuna iyo qisooyinkooduna aynu insha allahu tacaala dib ka bilaabi doonno hada wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam